waxaan aragnaa marar badan oo la wareysanayo madaxda Soomaaliya. Ardada ka soo baxday jaamacaduhu waxay leeyihiin mudanayaal markaan aragno shaqo la soo bandhigay oo aan apply gareyno ama aan codsanno annagoo aqoonteedii leh nooma suura gasho inaan ku guulaysano. markaan xafiisyada qaar aan tagno annagoo shaqadoon ah waxaa nalagu soo xiraa damaanad yaa ku yaqaana yaa adeer kuu ah. dhanka kale haddana waxaan la soconnaa inay jiraan dowladdu inay mar walba ka cawdaan ardada ama ardadaan oran shaqaalaha cusub ee la keeno xafiisyada dowladaha heerarkooda kala duwan inaysan aqoon u lahayn bosishinka la keeno, haddana aysan awood u lahayn inay shaqadii ka eriyaan oo qof kale ay keensadaan. labada arrimood adigu isla doono. ardadii jaamacadaha ka soo baxday ma helaan fursadaha shaqada sababo la xiriira ama qaab qabiil iyo ama qaab damaanadeed ama qaab ah. waxaa laga yaabaa kan haddii adiga dadka kugu dhow ama xildhibaan ah ama wasiir iyo waxaas ah inuu isaga laftigiisa qof wato oo qof kaaga sii dhow uu jiro waa dhici karta. laakiin adigoo diyaar u ah inaad imtixaankaa gasho ku kalsoon inaad ku guulaysato aqoonteedii leh ma helaysid bosishinkii. haddana xaggaas wasiirkii qofkii loo keenay xafiiska wuxuu leeyahay war dhibaatadan haysataa waxay tahay shaqaalaha la soo qorayo ama la keenayo aqoon umale wixii loo keenay. wase garan kartaa dee marka sababta marka ardayga hooyo masaakiina iyo aabba masaakiina ay dhaleen oo ay soo qarash gareeyeen oo heer jaamacadeed la geeyey oo uu soo dhammaystay markii uu waayay haddana fursad uu ku shaqaysto fursaddii loo diido bosishin uu waayo. marka qaarna waxay iska sameeyaan bajaajyadooda iska fulaan, qaarna waa kuwan soo wada tahriibay oo meelaha ku wada go'doonsan, meelaha ku wada xiran, meelaha ku wada dhibaataysan ama magafayaashu haystaan oo maalin walba meeshaan la keeno oo la yiraahdo hooyo masaakiin oo yaanyo iibisaanahay wiilkaygii baa loo haystaa madax furasho, gabadhaydii baa loo haystaa madax furasho. waxaasoo dhan waxaa sabab u ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee waddanka oo raba inay waddanka ku hagaan sida ayaga ay jecel yihiin, sida ayaga la qurux badan oo aanan ahaynba xataa maaragtay dadka la asxaabta ama la maamulka kula jira inaysan la wadaagin talada. waxa yaable laftirkeeda ma aragno inta shaqada ay socoto nin yiraahda war anigu wasiirkii baan la shaqayn waayey ama madaxweynihii baan la shaqayn waayey oo shaqadii waan iska casilay, shaqadan ma wadi karo uma madax bannaani. laakiin muddo kadib marka xere iyo fandhaar kala dhacaan ama muddadii loogu talagalay ay dhammaato ayay meelaha ka yidhaahdaan ninuu ninkaa dhibaatadaasu nugu hayayo hawshaba isagaa iska watay. waa goor aan loo baahnayn wey, aan hadalkiisu uusan waxba tarayn. mar walba dadka waa la dhaariyaa, haddana dhaartii waxaan aragnaa qaabkay u dhaqmayaan iyo dhaartii in isa waafaqsanayn. marka talo ma dhihi karnaa dadka Soomaaliyeed ama madaxda Soomaaliyeed ama baarlamaan ha ahaadaan ama kuwa kale ha ahaadaane waxaa haya dhaarti ma dhihi karnaa waddanka wuxuu u hagaagi la'yahay. ilaan nimankan maalin walba kitaabka gacanta midigta saar ayagoo saf ballaaran ah baa saas loo dhaariyaa, mid baa kii haddana la dhaariyaa oo kale. marka aad u fiirso waxaas dhihi kartaa laba arrimood. horta mid way muuqataayoo hadda waddanka maamul kalaa ka dhex dhisanoo meel la yirahdo xalanaa jirto oo wax laga maamulo oo la yiraahdo way ka madax bannaan tahay maamulka dowladda federaalka ee Soomaaliya. maamulka madax bannaan baa meesha degan. marka qofkii kursigaa ku fadhiista
dee malaha wax xoogaa argagax ah ama cabsigelin ah oo uusan ka leexan karin baa meesha yaalla miyaynu dhihi karnaa haddaan saa dhihi lahayn laftirkeeda dee kuwaa hore usoo fadhiiso haddana ku soo noqday oo bosishinkii markii hore bosishinka hoose ka cayaaraya marka ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay barnaamijkan uu daaran yahay oo aan baraarujinaynaa haddaynu nahay bahada indhaha shacabka inay aada iyo aad uga fiirsadaan cid allaale iyo ciddii ku xukumaysa cid allaale iyo ciddii ku matalaysa kursi dowladeed oo qof qurbo ka yimid boorsadiisa iska wata aysan aqbalin qof dowladaha iyo hay-adaha iska dhex jiri jirayoo boorsadiisa wata aysan aqbalin mid maskiina oo ay yaqaanaan oo nadiif ah shaarkiisuu cad yahay oo ayaga danta ay ku nool yihiin og inay mar walba doortaan hadda waddanka wuxuu u muuqdaa inuu sii kala go'go'ayo sababtoo ah meeshii la rabay in la isaga wado waddanka la isaga hayo waa xafiiska ugu sarreeya waa dowladda federaalka ayagiina maamul goboleedyadii waxaad mooddaa inay u sii xarigdaynayaan in irdaha laga xiranayo saan doonayna haddaa yeeli weydaan horey u socda danta soomaaliyeedna sidaa kuma jirto aad baan idiin salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu